وحبضان ورن مايو وقت قنا وين نغير يهي وحان إذا ورن لهايون وقت يربا يدين هراي كبدي واد قرن يسان وحدو باهنتين ناديالتان أتكيسي وحلي هذا فياتا لو كلا بدينا يا مانتا بالقربة هيد وحي الله يدين قبطي بالشاس وحويان كبد لو ما بران كرو كبدي واد ولا تقانا كلكي مانتا waxa lagu kala badinaya xawayad kaysi waxaan kula talinayaa idinka iyo taabariina siciidba in muddada yar idin hadhay aad xoog saartaan sidii aad fiyaatadii noo kordhin lahaydeen halka intaasaan kaga baxaya waxaan halkan fariin uga dirayaa ganacsatada reer Burco waxaan leeyahay waxay u baahan yihiin dhalinyarada ciyaartooyga Burco in la isgarab taago in la dhiirigeliyo bay u baahan yihiin sidoo kale markay Hargeysa namadu yimaadaan wasiirada wax u diidayeen inay casuumaan ciyaartooyada ka yimi gobolkooda wax u diidayaa ma jirto wasiir maxamed kaahin wuu casuumi karaa ciyaartooyda gobolka Togdheer wasiir koore wuu casuumi karaa ciyaartooyga gobolka Sool wax u diidayaa ma jirto waxaan xusuustaa sanadkii waxaan maaniyaa 85kii iyo 86kii mid ahayd ma garanaayee oo aan wareegga labaad u gudubnay xamar ayaa labadii ciyaarood oo horeeyay baa laga badiyay dabeedna ciyaartii saddexaad baa waxaa la casuumay wasiirkii la oran jiray Jaagaas Macaawiye wuxuu nagu casuumay hogalkii la oran jiray Juba galabnimadii baanu ciyaarno waxaan la ciyaarnay gobolka Hiiraan 6 baanu ku dhufanay ciyaartii xigtay ayaa waxaan casuumay Ismaaciil Axmed Ismaaciil waxaan la ciyaarnay Kismaayo 3 baan iyagana ku dhufanay waa dhiirigelin waxay tahay inamadan garanaysa marka la casuumayo ama ma garanaysaa la sharfayo waa dhiirigelin marka taasna intaasaan ka oranayaa dhalinyaro badan baa sugaysa oo maxamed Juriye kamid yihiin salaatu wasalaamu ala ashraf al-anbiya wal mursaliin sayyidina Muhammad dhamaan madaxda gobolka ciyaartooygii hore ee gobolka Togdheer aqoon-yahanka iyaguna caawa ka soo qayb galay xafladan intiina soo agaasintay iyo intiina ciyaartooyga ah caawa halkan fadhidaba oo salaamay waxaan ku salaamay assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh caawa kulli hadal badan ma harin gubaabadeena hore inuu soo niri caawa wax weeyaan waa gabagabadii iyo sagootintii safar baa galeysaan ilaahay marka hore haydin ku nabad geliyo ciyaaraad tageysaan ilaahay haydin ku guuleeyo laakiin inta kaliya u baahan tihiin mar walba ina xasuusnaataan wax weeyaan maalmaha yar ee training idinka hadhay nin walba sida aad u training gareyso ama aad naftaada u dhibto ayuun bad hadhowto garoomada dadku daawanayaan ilyartis qabanayso aad uga soo baxaysaa ama basket ha noqoto ama football ha noqotee waa 3 qayboodun waa skill iyo physics iyo discipline mar walbana nin walba intuu ka qaato skillka isaga isbari kara waxna waa wax talent oo Ilaahay bixiyo laakiin intaad ka qaadato trainingka ayuun bad garoomada ka ciyaari karaysaa ta ugu muhiimsan waa akhlaaqda tay isku gubaabinayno maalin horena ka wada hadalay iminkana markii la idinku celinayna wax weeyaan laacib kastuu yahay haddii aan akhlaaq lahayn meel ma gaadhayo marka akhlaaqda yaan laga tagin maalmaha yar idin haray hal dadaalo anaku waan idin daba soconaa waa idin la joognaa waa idin la dhamaysanayna haddii Ilaahay yiraahdo hil iyo hooba taageero idin kala hadhi mayno sacabkan waa haddii Ilaahay yiraahdo qaylada marka aad baan idin salaamayaa jimco wanaagsan baad leeyahay madaxda gobolka marti sharafta kale saxaafadda iyo ciyaartooyga gobolka Togdheer dhamaantiin waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh waxaan u maleynayaa intii imka Ibrahim iyo xafladii saddexaad aan ka qayb galo ee dhiirigelinta sportska inay tahay marka hore waxaan ku hadlayaa magaca bahda sportska ee Soomaaliland oo horena ay soo aragteen waxaan kaloo ku hadlayaa magaca ururka horumarinta ee gobolka Togdheer oo dhawaan qurbaha laga aasaasay iminkana gudaha isna laga aasaasay kaas oo u taagan
waxtarka iyo taakulaynta horumarka gobolka togdheer iyo ka hortagga qabyaaladda iyo isdhexgalka bulshada. Sportskuna wuxuu ka mid yahay arrimaha lagu tirtiro qabyaaladda. markaa horta waxaan bahda sportsku maanta maalintii horena waxbaa ka sheegay ay idin diyaarisay. maantana waxaan isku bishaaraynayaa qolada basketka in kubadihii basketka bisha 21keeda iyo qiiman iyo nin tababaro oo international ah in loo keenayo oo tababarayaasha laftoodu ay ka faa'iideystaan. taasina horta waa bishaarada qolada direyskii maalintii roota aan ku ballan qaadnay ee bahda sportsku ballan qaadayna ha is oranina maraa maalintii u fadhiga laga kacay isna waa idin diyaar. waxa kaloo ayaa bahda ururka horumarinta gobolka togdheer caawa aan doonaya inaan u diro wixii dhiirigelin dhalinyarada ay ugu tala galeen gobolka ninba waa ku raqdiisay inay u soo mariyaan account-ka aanu soo siino oo aan u soo diri doono ururka horumarinta gobolka togdheer website-kiisa. account-kaas uu leeyahay jaamac Karaacin halkaa ugu soo hagaajiyaan wixii ay tarayaan. waxaan kale oo ku dhiirigelinaya ganacsatada reer Burco inay isgarab taagaan dhalinyarada haddaba hal baan leeyahay. waxa weeye wax badan baa la idin sheegay oo nimankii sportska hore ay ka waaniyeen maamulka gobolka oo idin kala hadlay. waxa jirta had iyo jeer intii hore waanayahay maanta waxa weeye waa la idin xisaabtamaya marka ciyaaruhu bilaabmaan ee garoomada la galo. waxa jirta in mid yara daalay la bedelo mid miiska fadhiyana la soo geliyo. waxa jirta inama xarfaanahoo had iyo jeer qaali iska dhiga. waxa ka qiimo badan inanka akhlaaqda leh ee aan xitaa kubadda aad u aqoon. marka waxa weeye taa idinkuna hala imanina. annagu berigaan ciyaari jiray annagaaba oran jirnay aadayna bedelo hebel u bedel. maxamed jaamac cilmi number 5kaygii buu ahaa 1983 84 iyo 85 isaga iyo jamaal faaba isugu bedeli jiray. dadka waanu isaga dhowey. kabtanka iyagana uu ahaa hal sana anugu kabtan ahaa 84kii baan u malaynayaa inaan ahaa kabtanka. inta kale isagaa kabtan u ahaa oo waxa lagu dhiibi jiray hadee jeer uu dabeecada tahay waxaan soo jiray si aan u xanaaqin isagu dadka u dejiyo. anigu miskiin baan haayo markii dib laga wareejiyay xayawaad maxamed baan iyo yar xanaaqaye baasho u dhiib. waa soo gaabinaya. marka waxaan kula dardaarmayaa inaad dadaashaan inaad akhlaaq keentaan tabarihiina inaad ixtiraamtaan idinka gudihiina inaad ixtiraamtaan inaad isu haniyeysaan oo aan jeclaysi iyo qof jeclaysi aan dhexdiina aanay ka muuqan. kubadda ninka kaaga wanaagsan inaad u dhiibto. qolada baasketka waxaan doonayaa si gaar ah inaan ula shaqeeyo ama tababar ha ahaato ama qalab ha ahaato ama kubad ha ahaato. niyadiina ha xumaynina. waan idin salaamayaa. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. السلام عليكم. halkan waxaan ka salaamayaa odayaasha isugu yimi xafladan caawa maamulkii gobolka odayaashii hore isboortigii hore gobolka togdheer iyo annagoo hadee dadkii maxaanku adaayay Burco maanta u taagan. aad iyo aad ayaanu idiin soo dhaweynaynaa. aad iyo aad baanu idiin garab taagannahay. cid alla ciddii inta dhismihiinna iyo intaa tababarka ku jirtaan ilaa iyo intaa ciyaar tegaysaan xil idinka saaran yahay way iskiin garab taagaysaa. ama ha noqdeen qurbajooggii reer Burco ama ha noqdeen dadkii reer Burco ee magaalada joogay. hadday baac mushtari yihiin hadday bulshadii kale magaalada tahay waa la iskiin dhinac taagayaa. waxaanu idinka eegaynaa intii hadda Somaliland jirtay Burco waxay ahayd baraasiisha Somaliland. aad iyo aad ayaa xamaasadda maalinta ciyaarteeda ilaa madaxweynayaashu la socon jireen. halkii inaad ku soo celisaan adinkii iyo lugtii ciyaartii ayaa laydinka baahan yahay. gobollada aad la ciyaaraysaan iyo halka aad tegaysaanna akhlaaq iyo ciyaara la hortagtaan. laakiin wax xanaaq iyo dib u dhac inaga ilaaliya wixii nagu keena waana idin garab taagannahay. guulaysta. hambalyo. anigu laba kalmood baan oranaya. labada kalmood waxa weeyaan dadweynihii Burco meel kasta joogaan waxaan leeyahay waxaan wadaa maanta xul isku dhan oo ishaysta insha Allah oo filaya inay koobkii soo qaadaya insha Allah biidnillaahi kariim.
dadweynaha sharaftana waxaan ka xusanay inay noo soo diraan wax haddii alla ka dhigan soo caawiyaan waxaan miisigii burcaan hayaa cabdiwaduud ma cabdiwaduud faarax waxaan ku tusi lahaa miisigii burcaan ku tusi lahaa laakiin dibadda u baxay aad baan uga xumahay moogtay cabdiwaduud baa lahaa sabanka waxaa jooga xamse inkastoo aanay kala dhicin dhammaantood aad iyo aad baan idin wada salaamaya dhammaantiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu